Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada jaalka maalmaha. Waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso aad u cajiib ah. Balse intaan u gudagelin qisadan, haddii aad ka cusub tahay jaalka maalmaha, fadlan subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan waxyaabo cusub aan soo dhigi doono. Haddii hooyada ku tiraahdo kuma aan dhalin, abtiyaashaan ay ka marakacaan in hooyada aysan ku dhalin, maxaad samayn lahayd? Waa xaalad aad u culus, jawaabteedana aad u adag tahay. Bal ila fiiriya qisadan dhex martay hooyo iyo wiilkeeda. Maalin ayaa waxaa wada socday magaalada Madiina dhexdeeda wiil iyo hooyadii. Wiilkan ayaa aad u qaylinayay, wuxuuna dhahayay, Allah wax kala xugmiyo, aniga hooyadeena kala xugmi. Hadalkii ayaa waxaa maqlay Cumar bin Khadaab oo markaa meesha marayay. Markaasuu wiilkii wuxuu ku yiri, maxay tahay waxaad hooyada ku leedahay oo aad sidan uga sheeganaysaa? Wuxuu yiri wiilkii, qofkani waa hooyaday. 9 bilood ayay calooshii ugu soo siday. 2 sano naas ayay nuujinaysay. Balse markii aan soo weynaaday ayay inkirtay. waxayna igu tiri kuma aan dhalin. Cumar hooyadii ayuu u yeeray, wuxuuna ku yiri, wiilkan ma adiga ayaa dhalay? Marun baa waxa uu sheeganayo. Waxay tiri haweenaydii, aniga wiilkan ma aan dhalin. Waxaan ahay gabar oo weli leema guursan. Wuxuu ku yiri ma haysataa wax marqaati ah? Waxay tiri haa. Kadib waxay u yeertay marqaatigii, waxayna ku marag fureen in wiilkan aysan dhalin. Waxayna yiraahdeen waa beentii, ma dhalin gabadhan wiilkan ee wuxuu doonayaa inuu ceebeeyo. gabadhan weligeed lama guursan. Cumar wuxuu yiri, wiilkan xabsiga hala dhigo. Wiilkii waa la soo waday. Markii loo soo wado xabsiga ayuu wadada wuxuu kula kulmay Cali bin Abi Talib. Markaasuu wuxuu u sheegtay dhibaatada haysato. Cali ayaa ku yiri nimankii hala celiyo, Cumarna ha loo geeyo. Wiilkii waa la soo celiyay, waxaana loo keenay Cumar. Cumar wuxuu yiri maxaa loo soo celiyay wiilkan? Waxay yiraahdeen Cali ayaana amray inaan ku soo celino. Wax kadib Cali ayaa yimid. Markaasuu haweenin u yeeray, wuxuuna ku yiri ma haysataa dadku marqaati ah? Waxay tiri haa. Kadib waxay u yeertay marqaatiyaashii, waxaana sidoo kale halkii yimid walaalaheed. Cali wuxuu ku yiri gabadhii, haddii aadan dhalin wiilkan oo waxa aad sheeganaysaa run tahay, waxaan rabaa inaan kugu meheriyo. Walaalahan ay ogolaadaan. Kadib wuxuu yiri, waxaan kugu nikaaxay wiilkan, meherkiisana waa kana. Waxaan rabaa inaad maanta laga bilaabo noqoto xaaskiisa. Wuxuuna ku yiri wiilkii, gabadhan raac ee la tag gurigaaga, waxaadna tusisaa calaamaadkii arooska. Gabadhii waa ay qaylisay, waxayna tiri, naar miyaad ii horseedaysaa? wiilkan aniga ayaa dhalay. Balse sababta igu qasabtay inaan inkiro waxay tahay walaalkii iga weyn ayaa wuxuu igu daray nin aan aqoonin oo qariib ah. Markii aan wiilkan u dhalay kadib ayuu haddana wuxuu igu qasbay inaan iska furo ninkan. wiilkan aan ku inkiro. Sababtaas ayaan igu qasabtay inaan wiilkayga inkiro. Kadib wiilkeeda ayay gacanta ka qabsatay, wayna la dhaqaaqday ayadoo dhahayso, kani waa wiilkayga, aniga ayaa dhalay, aniga ayaa dhalay. dhab ahaantii waa qiso cajiib ah. waxaana ka faa'iideynaa inay wanaagsan tahay inaad mar waliba xaqa ku taagnaato, bini'aadana aadan ku adeecin wax kuu keenaya ama kugu ridaya carada Allah subxaanahu wa tacaala.